kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararka dhambaalka wararka qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo magacaabaya guddi saraakiil ciidan ah oo sareeyaal ah kuwaasoo gaaraya wadanka Eritrea daabulida ciidan ay sameynayaan iyo qorshaha loo xil saaray sida gaarka guddigaas ayaanu faahfaahin idinkaga haynaa daawadayaal xubnaha maamulka gobolka Banaadir waxay bilaabeen in ay iskaga baxaan dalka Umar Filis socdaalkii uu ku tagay wadanka Turkiga iyo ujeedada safarkiisana xog ayaanu idinkaga haynaa daawadayaal waa kuma shakhsiga loo diyaariyay madaxweynaha cusub ee Galmudug halkee ayuu marayaa gulufka meesha looga saarayo qoorqoor ciidankii oo heegan la geliyay iyo xogtii ugu dambeysay magaalada Dhuusamareeb saraakiil Kenyaati ah oo hordhac u ah wafdiga madaxweyne Axmed Madoobe waxay gaareen qaybo ka mid ah gobolka Gedo ujeedka safarka Axmed Madoobena faahfaahin ayaan idinkaga haynaa daawadayaal wadahadaladii Axmed Karaash iyo Dani oo fashilmay iyo kulanka golaha wasiirada ee khamiista soo socota oo shaki badan uu ka taagan yahay cidda shir gudoominaysa arrimaha labada dhinac ay isku hayaan madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo loo magacaabayay xilka ugu saameynta badan golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya waxaan idin haynaa qorshaha laga leeyahay iyo xilkaasi waxa uu yahay wasiirada difaaca ee dalalka Soomaaliya iyo Tanzania kulanka ay yeesheen iyo ujeedka laga leeyahay oo mid saameyn ku leh xaaladda Soomaaliya xog ayaanu daawadayaal idinkaga soo gudbin doonaa qodobadaas iyo qodobo kale ayaanu halkan idinkugu soo gudbin doonaa daawadayaal haddii aad nagu cusub tahay oo markii kugu horeysay ay tahay subscribe saar channelkan si ay mar walba kuu soo gaaraan wararkeena dhambaalka wararka ku xirna wehelkaaga ka dhigo ana ku bilowna madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa magacaabaya guddi saraakiil ciidan ah isla markaana loo xil saarayo in ay soo daabulaan ciidamada ku maqan dalka Eritrea ee dhawaan oo faylkooda wareejiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ee xilka ka degay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa magacaabaya guddigan oo mas'uul looga dhigayo isla markaana uu hogaaminayo Bashir Goobe oo xilal kala duwan ka soo qabtay dalka isla markaana Generaal Rugcadaaya kuwaas oo gaaraya magaalada Asmara ee xarunta dalka Eritrea waxay sidoo kale socdaal ku sii marayaan magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya iyagoo la sii kulmaya mas'uuliyiin iyo saraakiil kala duwan oo loo xil saaray inay qayb ka noqdaan dadaalada wada xaajoodyada dalalka iyo sidii dib loogu soo celin lahaa xiriirkii guud ee ka dhaxeeya labada dal iyadoo meesha laga saarayo danaha shakhsiga ee aan danta ugu jirin labada qaran guddigan waxay si gaar ah u beegsanayeen xeryaha ay ku xareysan yihiin ciidanka tababarka muddada ku qaadanaya dalka Eritrea kuwaasoo la xaqiijiyay in si rasmi ah loo soo daabulayo isla markaana Soomaaliya ay diyaar u noqotay in ay bixiso guud ahaan shuruudihii lagu xujeeyay ee la hordhigay oo ay ka mid ahaayeen in la cadeeyo ciidamadan inay helayaan fariisin ku filan iyo sidoo kale in aynan gudbinayn xogta iyo sidoo kale ujeedooyinka ciidankan markii hore loo tababarayay waa kuma shakhsiga loo diyaarinayo inuu noqdo madaxweynaha cusub ee Galmudug marka xilka laga xayuubiyo madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor xog soo baxaysa ayaa tilmaamaysa in goor hore la diyaariyay shakhsiga noqon lahaa oo bedeli lahaa madaxweyne Qoorqoor oo markaan birtu ay ku agmudan tahay waxaana safka hore ka soo muuqday siyaasi ay isku hayb yihiin isla markaana muddo hogaaminayay oo ka tirsanaa golayaasha baarlamaanka dalka siyaasigan ayaa waxaa dabada ka riixaya xubno ka tirsan xisbiga UPD ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uuna ka mid ahaa kaadiriinta xisbiga isagoo si gaar ah loogu xanto inuu ahaa shakhsiyaadkii ugu saameynta badnaa xilligii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu talada hayay wixii ka horeeyay sanadkii 2016 madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo taa ka duulaya ayaa si degdeg ah waxa uu kormeeray saldhigyada ciidamada waxa uuna heegan geliyay ciidamada daraawiishta iyo kuwa militariga oo loogu talagalay inay jawaab ka bixiyaan cid walba oo isku dayda inay timaado Dhuusamareeb isla markaana ay khalkhal geliso maamulkiisa isaga oo si gaar ah ciidanka ugu hambaliyay jawaabta adkayda ee ka bixiyaan xubnihii ururka Ahlusunna wal Jamaaca ay isku dayay mar inay qabsadaan magaalada Dhuusamareeb kuwaas oo ka mid ah shakhsiyaadka iyo kooxaha doonaya inay Qoorqoor meesha ka saaraan shakhsiga markan loo diyaariyay inuu noqdo madaxweynaha Galmudug ayaa ah senator hore Abshir Buqaari kaasoo muddo ku soo jiray siyaasadda isla markaana haatan la aaminsan yahay in isbedelkan looga faa'iideysanayo inuu noqdo madaxweynaha Galmudug xubnaha maamulka gobolka Banaadir dalka ay si guud uga baxayaan maadaama xilka uu ka degay madaxweyne Farmaajo mase arrimo kale ayaa jira
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar filish ayaa safar uga baxay dalka isagoo u jihaysta wadanka turkiga halkaas oo muddo uu ku sugnaanayo. xog la helaya ayaa tilmaamaysa in ay jiraan saraakiil badan oo horey usii goostay islamarkaana iska xaadiriyay wadanka turkiga, qatar iyo meelo kale, kuwaasoo doonaya in aynan saameyn ku yeelan guud ahaanba dhaqdhaqaaqyada isbedelka ee ka dhacaya dalka islamarkaana uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh. gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho marka laga soo tago inay jiraan warar tilmaamaya in xaalad caafimaad uu tagay dalka turkiga islamarkaana lagu baxnaaninayo mid ka mid a isbitaalada ku yaala dalkaas, waxaa jira xog tilmaamaysa in gudoomiyuhu uu danaynayo in uu sii xirto heshiis deganaansho islamarkaana ku aadan in dalka turkiga uu si rasmiya fariisin kaga samaysto marka maalmaha soo aadan uu xilka ku waayay isbedelka dhacay. waxaana la aaminsanayahay in ay jiraan saraakiil badan oo ku sugan dalka turkiga kuwaas oo ka mid yahay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, xildhibaan Cabdiraxmaan Dheere iyo saraakiil kala duwan oo gobolka banaadir iyo xukuumadaba ka soo shaqeeyay, kuwaas oo aad iskugu dhow yihiin madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo, iyadoo la aaminsan yahay in xubnaha qaarkood ayna dib u soo laabanaynin inkastoo ay jiraan rajo muujinaysa inay dib u soo laabtaan xubnaha maamulka gobolka banaadir ee cumar filish uu hogaaminayo. wadahadaladii u dhexeeyay axmed karaash iyo siciid cabdullaahi deni ayaa gabaabsi noqday, kuwaasoo la tilmaamay in qaarkood ay fashil noqdeen, halka kulanka golaha wasiirada ee khamiista soo aadanna laga cabsi qabo in dhinacyadu ay isla soo hor fariistaan kala shir gudoomin kulamo iska soo horjeeda. axmed karaash ayaa weli ku adkeysanaya inuu yahay madaxweynaha talada sida kumeel gaarka kula wareegay, sidoo kalena madaxweyne siciid cabdullaahi deni oo dib ugu soo laabtay kursigiisa ayaa doonaya inuu hogaamiyo golaha wasiirada iyo guud ahaan xukuumadda. wejigabax badan ayay wasiirada qaarkood goor hore kala kulmeen kulamadii ay la qaateen madaxweynaha, iyadoo weliba axmed karaash u muuqdo inuu noqon doono mid guud ahaanba iskaga baxa xukuumadda islamarkaana ku ekaada oo kaliya guriga uu ka degan yahay magaalada Garowe. dad badan ayaa aaminsan in axmed karaash uu guud ahaanba lumiyey kalsoonidii uu ku lahaa bulshada iyo golaha wasiirada, sidaas daraadeedna una dib ugu soo laaban doonin xukuumadda. saraakiil kenyaati oo hordhac u ah wafdiga madaxweyne axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa gaaray gobolka Gado magaalooyin kala duwan oo ka tirsan. saraakiishan oo ka tirsan qeybta labaad ee ciidamada ATMIS ama howlgalkii AMISOM, gaar ahaan ciidamada dalka Kenya ee KDF, ayaa gaaray magaalooyinka Ceelwaaq iyo sidoo kale Garbaharey isla gobolka Gado. waxa ayna si toos ah u tageen saldhigyada ciidanka AMISOM ee ku yaala magaalooyinkaasi. saraakiishan ayaa waxa ay qiimeynayaan ammaanka guud iyo dhaqdhaqaaqa magaalooyinka uu tagaya madaxweyne axmed maxamed islaan axmed madoobe oo doonaya inuu heshiis toos ah la galo mas-uuliyiinta maamulka gobolka Gado iyo beelaha gobolkaasi ee kasoo horjeeda. waxaa la xaqiiqsaday in ay xubnahaasi ay tageen magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gado, waxaana jira rajo weyn oo laga qabo sidoo kale inay si toos ah saraakiishaasi ay kaga soo dhex muuqdaan howlgallada ammaanka lagu xaqiijiyo oo ka dhaca magaalada Garbaharey ee xarunta gobolka Gado, halkaas oo madaxweyne axmed madoobe uu ku hanweyn yahay inuu tago. waxaa jira dadaalo la doonaya in dhinacyada la iskugu soo dhaweeyo oo ka socda gobolka iyo magaalada muqdisho. madaxweynihii hore ee galmudug axmed cabdikariin xuseen guuleed ayaa loo magacaabaya xilka ugu saameynta badan xukuumadda Soomaaliya marka laga hadlayo dhinaca arrimaha gudaha iyo xaaladda wadanka uu ku jiro. markan cabdikariin xuseen guuleed oo saaxiibo dhow ay yihiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu rajo ka qabaa in uu helo xilka xukuumadda Soomaaliya ee horey ugu fariistay islamarkaana uu hogaamiyo wasaaradda amniga Soomaaliya. inkastoo xilligii uu wasaaradani ka tirsanaa oo wasiirka uu ka ay ahayd wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka oo hadda laba loo kala saaray, waxa uu rajo ka qabaa in uu noqdo wasiirka wasaaradda amniga gudaha isaga oo la wareegaya wasaaraddaas oo xilligan uu hogaaminayo xildhibaan cabdullaahi maxamed nuur oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya islamarkaana baarlamaankii 10aad ka tirsanaa balse kursigaas waayay sababo la xiriira tanaasul uu sameeyay. cabdikariin xuseen guuleed waxaa dad badan ay ku tilmaamaan shakhsi aan in badan loo aamini karin ammaanka guud ee dalka, balse waxaa goor hore xogta soo baxaysa ay tilmaamaysaa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu danaynayo inuu xilkaasi u magacaabo cabdikariin guuleed si uu u hogaamiyo wasaaradda amniga. wasiirada difaaca ee dalalka Tanzania iyo Soomaaliya
ayaa kulan ay yeesheen waxay diradda ku saareen sidii loo xoojin lahaa iskaashiga difaaca ee labada qaran, iyadoo diradda la saarayo sidii looga faa'iideysan lahaa cududa military ee labada dal oo la mideeyo laguna jiheeyo cadowga labada dal iyo guud ahaan dalalka gobolka, in argagixisada tillaabo adag laga qaado iyo in labada dowladood iskaashigooda ay sare u qaadaan waxay ka mid yihiin arrimaha looga hadlay kulanka oo wasiirka difaaca Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur uu la qaatay dhigiisa dalka Tanzania. Soomaaliya ayaa danaynaysa inay dib u soo celiso istaraatiijiyadda military ee iskaashiga gobolka iyo guud ahaan dalalka caalamka, iyadoo laga duulayo iskaashi dheef wadaaga oo dalalka dana ay ugu jirto. guud ahaan daawadayaal intaas waxaa ku dhan warkii habeenimo oo idinkaga imaanaya dhambaalka wararka. daawadayaal haddii aan ugu cusub tahana subscribe saar channelka si ay mar walba kuu soo gaaraan wararkeena. nabadgelyo.